sida maanta u wada jeedaanba waxa iska diiwaan geliyay degmada Gaalkacyo xaafadda horumar xarunta dawladda hoose oo halkan aad wada arkaysaan iskuul Cabdullaahi Ciise waa wada arkaysaan maanta sidoo ka soo shaqeeyay gudoomiyaheena guddiga doorashada wax lagu wada qanacsan yahay waxa aragtaan maanta muwaadiniinta Soomaaliyeed inay safaf dhaadheer ugu jiraan gaar ahaan reer Gaalkacyo inay safaf dhaadheer ugu jiraan inay qaataan kaarka cod bixinta reer Gaalkacyo waxa idin leeyahay codkiina ku ceelbaxa suulkiina inta qaadan lahaydeen muwaadin la idin soo duuduubay ama xildhibaan la idin keenay ama madaxweyne maamul goboleed la idin keenay ama mataqaanaa madaxweyne heer federaal la idin keenay waxa idin leeyahay suulkiina idin shaqeeyo hal ku dhig caana leediin oo ay ugu soo saarteen oo ah mataqaanaa qof walba codkiisa ku ciilbaxo meeshaan hal la imaado kaarka codeynta hal la qaato gurigeygaan joogaya qofkaan rabo inuu soo baxo ama aan rabo inaan doortana mataqaanaa niyadan ku haysanaya niyad ku haysa ma soconayso qof walba soo bax banaanka ha yimaado waxa u mahad celinaynaa guddiga amniga degmada kulligood dhamaantood waxaan leenahay shacabka ku dhiiriya banaanka u baxa dadka u sheega ka dhaadhiciya Soomaaliya 30 iyo xoogaagii sano burburka uu ka jiray kamaysa dhicin ama 60 iyo xoogaagii ugu dambeysay magaalada laga bilaabana waxay ahayd doorasho sax ah oo qof iyo coda oo mataqaanaa muwaadin kasta uu iska diiwaan geliyay kursigeyga horta kursiga bilaabay in muwaadin kasta codkiisa uu mataqaanaa dhiibto mataqaanaa dadka jooga markaasna kursiga si sax loogu tartamay haddana intay ka bilaabanaysaa bilow kasta iyo dhamaad kasta reer Gaalkacyo ayaa laga helaa ayagana bilow iyo dhamaadka iskale waxa idin leenahay reer Gaalkacyo codkiina ku cilmi